Kusoo dhawow fasiraadda riyooyinka. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبي ونكس ولا ريال waxaan gudagalay mowduucii ahaa fasiraadda riyooyinka. halkaad igala socotaan waa fasiraadda riyooyinka gobsan. marka hore like noo saara noona share gareeya la wadaaga asxaabtiina. jananka waa janan cusub kusoo biira walaalayaal subscribe saara. waa su-aalihii jawaabo insha Allah waxaan idinka codsanaynaa shaashad weynaysataan aad like na saartaan koobkiina gaxwada mise shaaygan aad soo qaadataan. ugu horeen gabadhaan waxay gabaraan ahay yacni weli ma guursanin. waxaan ku riyooday tiri gabar yar oo quruxsan iyo bisad quruxsan. bisad yar bisad waxay tiri cadaan iyo brown ahayd. waxay kaloo tiri gabar waa ciyaarsiinay iyo gabar yar oo quruxsan. gabadha yar oo quruxsan waa adduunku quruxsan. bisadana riyadeeda mar walba ma xumo. markay bisadaha ay yaryar yihiin oo kale riyooyinkooda aad ay u wanaagsiin kheyr badan ay tilmaamaan. gabadha yarna waxay ku tilmaamaysaa adduunku quruxsan insha Allah kuu soo socda nimcooyin wadada kugu soo jira hadduu rabbiga raxmaanka raalli ka noqdo. su-aasha xigta gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday suurat al-baqara aayad ka mid ah. hadda ka hor waxaan idiin soo sheegay janankii kale haddii aad aayad ku riyootid iyo haddaad suurad ku riyootid laba micnoo kala duwanay yeelanaysaa. yacni markaad suurad ku riyootid micno macayanaa jiro oo tilmaamayso laakiin isla suuraddii aayad ka mid ah haddaad ku riyootid micno ka duwanay noqonaysaa. micnahana wuxuu noqonayaa aayadda turjumadeeda. aayadda ay qofka riyada ku arkay waxay turjumayso micnihii laga wado oo ka turjumaysa ayuu qofkan quseynaya qofka riyada arkaya. aayadda waa aayad suurat al-baqara ku jirta kuma dhawaaqayo laakiin iyadoo qoraal ahaan halkaa idiin soo saaraya. aayadda markaa riyaad ku aragtid waxay ka turjumaysaa ninkii xaaskiisa. marka haddii adiga xaggaaga oo wax gaabis ka jiro yacni aad maxay ahayd ninkaa wax kaa tabanayo kale hagaaji. dabeecadaada ha ahaato la dhaqankaaga ahaado farxadaada yacni waxay tahay adiga ayaa is og. haddii laakiin adiga is leedahay nafteeda meel la fariistay aniga waan iskontaroolay waxba igama xumo rubama asiga xaggiisa yacni wallaahu yaclam culimo ah oo lacag isiinayo ayaan ku riyooday. siismada lacagta sideedaba waa kheyr badan. qofka culimada ahna rubama xoolo xalaala kusoo gali doonaan mise arsaaqad xalaala waxay doontaba insha Allah waa kheyr riyada. gabar kale waxay tiri shabeel ay ceersanayaan ku riyooday. waan kasoo hadlay muuqaal u qaasaa qeybta descriptionkan soo dhigi doonaa insha Allah. gabadha waxay tiri nin canjeero duway waxyaabaha adiga riyadu way dheer tahay laakiin inta muhiimadda ah oo fasir u baahan ayaan kasoo qaatay. waxay tiri anigoo ninkii lacag deena siinayo. caadi ahaan waxay tiri ninkaa deen iguma laha laakiin markaa lacag ayaan siinayo wax kale igu harsanayaan lahaa. laga yaaba in adi deeman kale lagugu leeyahay waayo adoo deen bixinayo way fiican tahay. adoo deen qaadanayo cakiskeeda way ma wanaagsano. adoo deen bixinayo ayaa fiican. adoo deen bixinayo deeman ayaad iska bixin doontaa. deeman kale muhiim ah inay lacag yihiin. qofka yacni laga yaabo inuu yidhaahdo ani lacag balayguma lahanbe gobsan maxay u leedahay adoo deen iska bixinayo. deemanka wax badan ay noqonayaan. balan aad qaaday noqonayaan nadaray noqon kartaa sooman lagugu leeyahay cibaadooyin yacni waxyaabahaas oo kale waa deen. marka waxay tiri waxaan ku riyooday geerida walaalkayga. geerida sideedaba ma xumo waxay tilmaamaysaa cimri dherer. waxay tilmaamaysaa u noqosho rabbi qofka hadduu arrin ka toobad keenay inuu rabbi ka aqbalayo. hadduu qofka daalim yahayna rabbigaaga u noqo. sidaasay tahay muuqaalo badan ayaan kasoo sameeyey janankeyga kale qaybta descriptionka ayaa iidana soo dhigi doonaa. waxaan aad ugu mahad celinaya dadkii badnaa oo xalay subscribe ii saaray janankan cusub iyo kommentiyadiinu aad u qurux badnaa aadna u qiiro lahaa. aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa. aad iyo aad ayaan ii farax geliseen. halkaas ayaan kusoo koobaya walaalayaal. wassalaamu calaykum.